kusoo dhawaateen videogan ugu talagalay walaalihii quruxda badan oo ay daawanayo. Magacaygu waa Fanaan Aadan. Walaalayaal, qof walba anaka naga mid ah waxaa kusoo wajaho waqti wato dhibaatooyin, murugo iyo xanuuno kala duwan. Waxaa aragnaa plankeena oo noo suurtageli weyso, riyadeena oo naga halaawdo, waxaa nagu dhacdo niyad jab iyo kalsooni daro. Shaydaankan wuu ka hela waqtiyaashaas sababtoo ah markay noloshan isku bedesho negative, maskaxdana negative ku fikirey. Waa waqtiyaasha ugu fudud ee aamini karno waswaaska shaydaanka. Markay xaaladaha nala soo gudboonaadaan, maxaa sameynaa? Waxaa jeclaysta hal talo inaan ila wadaago oo aniga run ahaantii i caawisay. Taladaasoo ah, marka xanuuno iyo dhibaatooyin badan dareentid, bax. Waxaa aadaa meel adiga kaliga ku tahay. Fikir, nafsadaada xisaabi, su'aalayaashan isweydii. Waxaan kugu dhacayo ma wax adiga hore u soo sameysaa, mase wax adiga soo sameynin? Ma wax adiga og tahay ina istaahishid, mase waa wax adiga dhehsid waxaan ma istaahilay? Wax kasto anaka dhiibno way nagu soo noqotaa, hadday xumaan tahay mase hadday samaan tahaybo. Hadday isdhahdid waxaan waa waxa aniga soo sameeyay, waxaa laga yaabaa waswaaska shaydaanka ina aamintid. Isdhahdid Ilaahay way neceb yahay, aniga qof xuna ahay, Ilaahay ma ii dambi dhaafayo. Walaalayaal, Ilaahay kuma necbo ee wuxuu ku dhadhansiinoyaa bas xumaanta sameynaysid, dhibaatooyinka ee leedahay, xanuunada ee leedahay oo ku dhadhansiinoyaa. Wuxuuna rabaa inaad u soo noqotid, Ilaahay dambi dhaaf weydiisatid. Aayad Quraan Ilaahay wuxuu ku dhahaa, inna Allaha yuhibbu al-tawaabiin wa yuhibbu al-mutahhariin. Ilaahay wuxuu jecel yahay dadka toobada keena. Ilaahay wuxuu jecel yahay dadka markasta isdaahiriya. Soo ma rabo inuu ku cadaabo, mana ku necbo, wuu ku jecel yahay. Wuxuu markasta diyaar u yahay inuu dambigaada dhaafo. Aayad kale Ilaahay wuxuu ku dhahaa, dadka ugu dara, dadka dambiyaashooda ilaa cirka gaaray, dadka habeen iyo maalin nafsadooda qalad ka galo. Ilaahay wuxuu dhahaa, qul yaa cibaadiya alladhiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmatillaah. Addoomadeyda nafsadooda ku xadgudbeen, marna ha ka quusanin naxariista Ilaahay. Inna Allaha yakfiru dunuuba jamiica. Dambiyaashaasoo dhan Ilaaha dhaafayo. Innahu huwa al-ghafuuru raxiim. Ilaahay wuu dambi dhaaf badan yahay, wuuna naxariis badan yahay. Waxaana sameysaa camal fiican. Camalka fiican waxay baabi'inaya dhaqay xumaanta iyo dambiga way tirtiree. Hadday tahay waxaas dhehaysid aniga ma istaahili, waxaa sameeyay oo dhiibay ma ahan, dan bishaareyso. Waxaa ku bishaareysataa Ilaahay wuu ku jecel yahay. Ilaahay wuxuu itixaamaa dadkuu jecel yahay bas. Waxaa laga yaabaa plankaada kuu shaqayn waaye inay yihiin wax saameyn xun ku lahaan doonto future-kaada, mustaqbalkaada hore wax dhibaayo oo xanuujinayo oo murugo iyo dhibaato xun kaasoo gaarayo. So Ilaahay wuu baabiyey plankaada intay plankaada adiga ku baabi'inin, wuu kuu naxariistay. Marmarka qaar waxaa laga yaabaa Ilaahay inuu kuugu talagalay meel dheer. Bini'aadankana way kala duwan yihiin. Dad qaar ma kacaan, ma istaagaan ilaa dhibaatooyin, ilaa xanuuno lagu soo gudbiyo. So waxaa laga yaabaa adiga inaad ka mid tahay dadkaas oo Ilaahay rabo inuu ku kiciyo oo ku geeyo meesha adiga kuugu talagalay. Marmarka qaarna Ilaahay dadka qaar wuxuu u intixaamaa, wuxuu ugu talagalay level jannada ka mid ah. Camalkooda fiican dartiis, camalkooda fiican kaligood ma geynayso meeshaas. So Ilaahay wuxuu sameynaa, wuu intixaamaa sida intixaankaas hadday ku guuleystaan intixaankaas sida u aadaan levelku Ilaahay ugu talagalay.
marka mugdiga iyo xanuunka iyo dhibaatooyinka dareemaysidne caawitaan ka raadso. wastaciinu bisabri wassalaad, ka raadso caawitaan sabarkii salaada. ina allaha maca asaabiriin, ilaahay wuxuu la jiraa dadka sabra. ilaahay wuxuu fiirinaa kalsoonida ku qabtid. ilaahay wuxuu fiirinaa dulqaadkaada. ilaahay wuxuu fiirinaa qadarka ilaahay ina aqbashay. haddaa saa samaysay ilaahay tala saaratay, haddaa ila saarada faman yatawakal cala allah fahuwa xasbu. qof kastoo ilaahay tala saartaa ilaahays enough, ilaah wuu kugu filan yahay. waxaa ku dadaashaa sabarka iyo salaada, waxaana badiysaa ducada waqtiyaashaas xanuunka dhibaatadu ka heeyo. ducada waxay ka imaanay qalbigaada. ducada markay qalbiga ka imaadane ilaahay ma dayaco, marna ma dayaco. waa walaashiin Afnaan Aadan oo nii leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.